Somalia ni mbia wetu muhimu na tutaendelea. Ethiopia ayaa si xeeladaysan loogu soo jeediyay istiraatiijiyad fudud oo ay ku isticmaali karto dekedaha Soomaaliya. Dalka Soomaaliya ayaa 24kii bishii hore si rasmi ah uga mid noqday ururka bulshada Afrika. Arrintaas oo hadda laga bilaabo fududeynaysa isku socodka, isdhexgalka iyo ganacsiga bariga Afrika. Soomaaliya ayaa ku biirtay ururka bulshada Afrika dalalkii horey uga tirsanaa oo kala ahaa Burundi, DR Congo, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Laakiinse waxaa jirta in aysan bulshada Soomaaliyeed aanay weli hayn xogo badan oo ku saabsan sida lagu dhaliyay inay Soomaaliya ku biirto ururka bulshada Afrika. Waxyaabaha ay ka helayso, waxa ay hurayso iyo waxa loogu xushay, walow aad loogu celceliyay dherarka xeebaha Soomaaliya oo ah arrin kicinaysa abiteedka dalalka ku jira ururkan oo aan ama bad lahayn ama xeeb dheer oo ku filan aan lahayn. waxaase jirta qorshe rasmi ah oo aan la hubin inay Soomaaliya ka fikirtay, walow uusan xumayn haddii loo maareeyo si u danaynaysa Soomaaliya. waana kiiska Ethiopia iyo ururka bulshada Afrika ee EAC, sida uu kowdii bishii Abriil ee sanadkan qiray Peter Matuki oo ah xogayaha guud ee ururka bulshada Afrika. waxay ku tala jiraan qorshe ah in marka hore ururka lagu soo daro Soomaaliya kadibna lagu soo daro Ethiopia, isagoo sheegay in ujeedku yahay in la qaado xadadka u dhaxeeya dalalka ku jira ururka bulshada Afrika iyo Afrikaba. Peter Matuki, xogayaha guud ee ururka bulshada bariga Afrika, oo arrintan ka hadlaya waxa uu yiri sidan: haddii aan Ethiopia helno, waxaan noqonaynaa suuq haysta 500 milyan oo macaamiil ah. Ethiopia oo bariyahan la soo bareertay inay bad u baahan tahay, ayay tani u noqon kartaa inay si sahlan ku helaan xeebaha Soomaaliya ee ay hoggaan xumida, maangaabnimada iyo qabyaaladdu baylihiyeen. maadaama ay Soomaaliya durba ku biirtay ururka EAC, mana xuma haddii ay Soomaaliya khidmad ka qaadanayso iyadoo maamulkeeda u madax bannaan, balse waxa ka daran in lagu maro federationkii kontomeeyadii lagu khiyaamay Eritrea ee markii dambe la baabi'iyay. arrintan maqaal ku saabsan oo ciwaan looga dhigay aan Soomaaliya ku tijaabino bishii March ee sanadkan, waxaa wargeyska East African ku qoray aqoon-yahanka reer Kenya ee la yiraahdo Charles Onyango. wuxuu qoraalkiisa ku sheegay in ujeedka federationka soo socda uu yahay in dal kasta uu yeesho dawlad u dhaqmaysa sidii gobol ka tirsan federationka, balse ay xuduuduhu isu wada furan yihiin oo aad dal kasta ka geli kartid meeshii aad doonayso iyo goortii aad doonayso adigoo aan fiisa wadan. Charles Onyango oo arrintan tusaaleynaya waxa uu yiri sidan: waa adiga oo Nairobi jooga oo raba inaad Kampala aado. si kastaba ha ahaatee, halkii aad halkaas aadi lahayd Busia ama Malaba, waxaad sii maraysaa xadka Tanzania iyo Kenya ee Namanga. qoraaga Charles Onyango oo sii sharaxaya in marka federationka la dhiso, jamhuuriyadaha ku jira noqon doonaan sidii kuwii ku jiray Sofiyeetkii, isagoo tusaale u soo qaatay in madaxdoodu ay noqon doonaan sida barsaabyada degmooyinka ismaamulada Kenya, Kenya's county governors, balse ay awooddu la taalo qofka fariisan doona caasimadda federationka oo uu ku sheegay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Charles Onyango marka uu leeyahay aan Soomaaliya ku tijaabino, wuxuu qoraagu soo jeediyay in marka hore la mideeyo ciidanka ATMIS ee Soomaaliya jooga iyo kuwa Soomaaliya, kadibna markii halkaas laga soo jeesto waa in loo diraa dalka Congo DR oo hubka laga dhigaa. markaa kadib waa in ciidanka isku dhafka ah ee dalalkani leeyihiin laga dhigaa ciidanka qaranka ururka bulshada bariga Afrika. Soomaaliya oo haatanba ah dal si kasta fici uga haray, aysan gaar wax ugu dhimaynin haddii la keeno xal lagu wada guulaysanayo. bisna waxaa loo baahan yahay inaan lagu degdegin
go'aamada qaar isla markaana aan qolal mugdi ah wax hadhow laga shalaynayo aan lagu saxiixine si hufan shacabka loogu sheego faa'iido iyo khasaaro wixii ku jira ururka bulshada bariga Afrika. marka la sameynayo isku biritaan noocaasa oo heerkaas gaarsiisan faa'iido iyo khasaare intaba way yeelan kartaa. Wadankeena waa ogtahay wuxuu ku tiirsan yahay importska kaliya, imports goodieska wax la yiraahdo alaabaha la soo dejiyo bedelkeed ma lihin alaaba aan dhoofino. Marka tariifiska hadii hoos loo wada dhigo alaabihii oo dhan loo keensado anagu tariifis hoose aan kaga canshuurno ayagana aanan haynin wax bedelkeed aan dhoofino maxaa yeelay wadankeena productionkiisa ama wax soo saarkiisa aad u liitaa hadii aan la farsamada hadii aan lahayd xoolaha hadii aan lahayd kalluunka iyo beeraha intaba. Marka exportigeena maadaama uu yar yahay taas caqabad bay nagu noqonaysaa inaan ku biirno bulshada bariga Afrika. Laakiin dhinacyada kale oo dhan Soomaaliya sharaf bay u tahay inay ku biirto bulshada bariga Afrika dhaqaale ahaan, amni ahaan iyo ganacsi ahaan. Faa'iidada ay Soomaaliya ka heli karto horta meeshan waxaa fududaanaya isu socodka dhanka socdaalka oo ay Soomaaliya dib badan ku qabtay inay wadamadan East Africa ay la macaamisho. taa faa'iido weyn ayaa ku jirta. Opportunitieska amba fursadaha shaqane marka sare ay u kici karaan oo Soomaalidu waa dad aad u firfircoon xirfadooda iyo shaqadooda halka ay la aadi karaan oo way soo dhaweynayaan guud ahaan waana wax oo dhaqaalaha Soomaaliya wax weyn oo macnaha ku soo kordhi doona. Sidoo kale waxaa meesha ka baxaya in caqabadihii ganacsiga iyo dhaqaalaha meesha laga saaro oo factors of production ka wax la yiraahdo sida laborka iyo capitalka iyo entrepreneurshipka ay soo furmaan. Soomaaliyana ay maadaama aan heysano dad aad u firfircoon oo yiraahdo Soomaalidu waxay safafka hore kaga jiraan dadka aad ugu firfircoon businesska inay businesska Soomaaliya ay sare u qaado. sidoo kale waxay sharaf u tahay Soomaaliya inay la fadhiisato wadamo intaas dawlad soo ahaa oo nidaam ku jiray inay safka ay la gasho amba ay miiska la fadhiisato taa ayadana guud ahaan wadanka sharaf ay u tahay dawladnimadiisana macna weyn ay ku soo kordhinaysaa iyo dhaqaalaha intaba. Allow me to congratulate the Federal Republic of Somalia for joining the East African community. Hambalyo maanta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ka mid noqotay suuqa bariga Afrika oo ay 7 dal hore ku mideysnaayeen oo Soomaaliya ay noqotay dalkii 8aad. Warbixintan waxa qoray Maxamed Xaaji